kusoo dhawaada JTN magacayguna waa Axmed Awge Mustaf Maxamed Umar madaxweynaha deegaanka Soomaalida oo daqada korbartiisa Facebook ku baahiyay qormo ku yidaamin tudac murti ah ayaa si qayaxan uga daba tagay shaacana ka qaaday sawaxana ka dhashay ajendaha wada hadallada qaran iyo kulankii maalmahan ergooyinka Soomaalida uga socday jigjiga madaxweynaha oo qormadiisan xoog ku saaraya ka digtoonaanta wararka fawda abuurka iyo beenaha ah ee dadweynaha lagu soo dhex tuuro hoostana ka xariiqo oo si cad u beeniyay warar badan oo bariyahanba ka socda baraha bulshada ee deegaanka Soomaalida waxa uu ku yidhi madaxweynuhu qormadiisan saamaynta baraha bulshada iyo fawdada ka abuuranta xogaha ku salaysan been abuurka iyo hubsiimo la'aanta waxa laga gaashaaman karaa oo dhaahdeenii aan ku soo caanamaanley ahayd hubsiimo halba la siistaa haddii aad tahay qof maalin walba xogoon oo iska hubin ku hawlgelaya ama maalin walba ajendaha suuqa ugu yimaadaan odhan karin ajendahan yaa la joogay oo cidda leh aan iska eegaynin adiga ayuu kula hadlayaa abwaangadh leh marka uu leeyahay maskaxdaadu yay noqon maqal lagula leeyahay yaan toban muftaaxiyo lagu furan masaabiir waxaa shalay mudatiyo mahadhada xasuusnow halkii qorigu kaa muday mar labaad lugtaadiyo cagtaadu yay kula marin maantiyo dantaadiyo yaan mirilku kaa lumin maalmaha dambeeyiyo waxa maqana faalle shalay wixii lagu sheegay haddii uu been noqdo waxa maanta aad maqlaysana la sugbarri si wixii jiriye waxaan jirinba uu kugu kala baxo wadaxaajoodka qaran ma jirto cid aan Soomaali ahayn oo la shirtagay ajendaha Soomaalida ma jiro in tiro aan noo qalmin leeyna siiyay sida ay noo jirin calan magac iyo caasimad la bedelayo ayayna u jirin ajendayaal halis ku ah shacabka deegaanka Soomaalida oo lagu karkarinayo hanaanka wadaxaajoodka qaran ee socda wixii aan u cuntamin shacabkana waxay haystaan fursad ay codkooda ku muujiyaan maadaama afti ama referendum laga qaadi doono oo ayna jirin go'aan lagu gaarayo shir meel lagu qabtay qoomiyad kale wakiilay noqomo odhan oo ma daminanin marka kuwa inaga tirsan ee leh qoomiyad hiblaayo gogol ayna fadhiin soo fadhiisan mayno waxa iska cadun inay kubad lagu ciyaarayo u yihiin kooxo faraweyn halkaas ayuu ku soo afmeeray madaxweyne Mustaf qormadiisan adigana maxay kula tahay